Fethullah Gulen oo ahaa wadaad Turkiya oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay isku daygii afgambiga dhiigga badan ku daatay ee dhicisoobay 2016 ayaa geeriyooday isaga oo 83 jir ah sida ay ku warantay warbaahinta Turkiga oo baraha bulshada soo xiganaysa in uu ku geeriyooday dalka Mareykanka. Wararka ayaa intaasi ku daraya in wadaadka iskiis uu isku musaafiriyay isagoo ku noolaa wadanka Mareykanka halka uu ku geeriyooday ugu dambeyn kadib markii la dhigay isbitaal ku yaala gobol kamid ah Mareykanka oo lagu magacaabo Pennsylvania. Waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa ninka labaad ee ugu awoodda badan Turkiga. Gulen waxa uu ahaa hogaamiye ruuxiga ee dhaqdhaqaaqa Gulen oo bulshada Islaamiga ah oo awood u leh kana dhisan dalka Turkiga in uu ka qayb galo arrimaha siyaasadda. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay dhaqdhaqaaqa Gulen isku daygii afgambi ee 2016 balse Gulen ayaa beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay. Gulen waxa uu ku caanbaxay in uu u doodo dhalinyarada Turkiga ee waaye mustaqbalkooda waxbarashaduna ay tahay sababta ugu habboon ee lagama maarmaanka ah in dhalinyaradu ay helaan. Waxa uu caan ku noqday in uu dadka ku booriyo diinta Islaamka, samafalka, iscaawinta iyo wax wada qabsiga. Dhaqdhaqaaqiisa Turkiga ee loo yaqaano Hizmet ama adeeg ayaa markii ugu horeysay helay iskuulo waxayna sii diiwaan galiyeen inay hirgeliyaan maxadyo waxbarasho oo ku yaala dalka Turkiga iyo qaybo badan oo dunida ah kadib markii ay xoogsadeen dhaqdhaqaaqyada taageerayaashiisa isla markaana uu ku baahay ganacsiyo badan iyo isagoo bilaabay in ay ku milmaan gudaha dawladda militariga. Hizmet ayaa mar xulafo la ahaa Erdogan balse madaxweynaha Turkiga ayaa ku soo jeediyay dhaqdhaqaaqa sanadkii 2013 isagoo wacad ku maray inuu xirayo boqolaal iskuul oo ay wax ku bartaan una dawladda ka sifayn doono Gulenistanka iyo sidoo kale kuwa lagu eedeeyay in dawladda iyagu aragti ahaan ay ka duwan yihiin. Saraakiisha ciidamada booliiska ee xulafada la ah Gulen ayaa lagu eedeeyay inay qaadeen weeraro ka dhan ah xulafada Erdogan waxaana dawladda Turkiga ay si rasmi ah ugu dhawaaqday ururka Hizmet bishii May 2016 inuu yahay urur argagixiso. Labada bilood kadib qayb ka mid ah ciidamada Turkiga ayaa isku dayay inay afgambiyaan Erdogan waxayna sheegeen in ujeedka uu yahay in dimuqraadiyadda laga ilaaliyo madaxweynaha kaligii taliska ee Turkiga ay ula jeedaan Erdogan. Markii uu dhacay isku dayga afgambiga ee bilowday rabshadaha isagoo xarumaha telefishinada ay weerareen ciidamo sidoo kalena rabshadaha ayaa isqabsaday magaalooyinka Istanbul iyo sidoo kale Ankara. Dibadbaxayaasha ayaa toogtay waxaana rasaas lagu furay xarunta baarlamaanka iyo sidoo kale madaxtooyada. balse inqilaabka ayaa guul daraystay kadib markii shacab badan ay ishortaag ku sameeyeen in dalka Turkiga uu ka dhaco afgambigaasi iyadoo la arkayay dad careysan oo guud ahaanba isku hareereynaya gaadiidka dagaalka. Dawladda dalka Turkiga ayaa Gulen ku eedeysay inuu ka dambeeyay isku dayga afgambiga balse waa uu iska diiday isaga inuu qayb ka ahaa isla markaana cambaareyntaasi uu diiday. Kumanaan askar oo u badan saraakiil sarsare iyo sidoo kale saraakiil xafiiseed ayaa la xiray iyadoo markaasina wixii ka dambeeyay la beegsanaya qof kasta oo ku lug lahaa afgambiga. Xilligaas Gulen waxa uu ku sugnaa dalka Mareykanka isagoo ku maqnaa musaafiris iskiisa halkaas oo uu guuray dabayaaqadii 1990. Turkiga ayaa codsaday in loo soo gacan geliyo si uu u wajaho maxkamad balse Mareykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in marka hore la arko cadeymo ku lug lahaanshihiisa afgambiga. BBC News ayaa Gulen ku wareysatay guri fog oo ku yaala halka hadda uu ku dhintay 2014. Wadaadkan ayaa intii uu socday wareysiga waxa uu ka gaabsaday su'aalaha qaar oo ay ka mid yihiin kuwa la xiriirinayo doorashooyinka Turkiga. Haddii aan dadka wax u sheego waxaan dhihi karaa dadku waa inay codsadaan kuwa ixtiraamaya dimuqraadiyadda sharciga oo dadku si wanaagsan ay ula macaamili karaan ayuu hadalkiisa sii raaciyay.